deeqdani oo ka koobneyd raashinka noocyadiisa kala duwan iyo lacago kaash ah ayaa maanta waxaa dadka lixaadkoodu dhiman yahay ee ku nool magaalada Jowhar soo gaarsiiyey hay-adda Gift of the Giveries waxaana dadka ka faa'iideystay tiradoodu ay gaaraysay 100 qoys oo indhoole iyo cuuryaamiin isugu jiray waxaana madasha deeqdani laga qaybinayay goobjoog ahaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen gudoomiyaha gobolka Ahmed Meere Makaraan iyo madaxda hay-adda Gift of the Giveries Dr. Cabdirasaaq Maxamed Xaashi madaxa bariga iyo bartamaha Afrika ee hay-adda Gift ayaa ugu horeyn madasha ka hadlay. Waxaan ka bixinay raashin aan cuuryaamiin iyo dad indhoolayaal aan siinay iyo in yar oo kaash ah oo sadaqo ahayd ayadana oo ugu darnay marka si fiican baan shaqada noogu dhamaatay wixii gabagabeena kale madaxweynaha iyo gudoomiyaha gobolka ayaa dhameystiri doonaan wax kale oo sidaas aan ku sii dareena ma jirto insha Allah laakiin saan filayo Soomaaliya aan isku gurmano wax kale oo gurmado kale haysana ma jirto meel walba aan joogno isku gurmano baa muhiim ah dadka yagi way liitaan aad baa loo liitaa abaar xun baa jirta waxyada aan marxaati ka noqonay maxaa waaye webiga Shabeelle oo biyo aan wadin baan marxaati ka noqonay indhahayaga aan ku soo aragnay waxaan halkaan macaawino aan ku soo gaarsiinay dad gaar ilaa 300 qoys oo isugu jira cuuryaamiin in dadka indhaha la camalayaasha laho waxaan soo gaarsiinay deeq raashin ah oo qayb weyn ka geysatay hay'adda Gift of the Giveries xafiiskeeda Muqdisho oo maanta halkaan nala joogo maamulaheena sare Xaashi gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Ahmed Meere Makaraan ayaa ka mahad celiyay gargaarka ay hay'addu ka wado gobolka sida biyo dhaaminta iyo gargaarada kale in aad iyo aad ugu mahad celiyayna hay'adda iyaduna dadaalka ay sameysay iyo maaragtay gurmadka ay soo sameysay waana uga mahad celihaynaa in allaana intii maaragtay wax kali karto ummadda Soomaaliyeed in maamulada maaragtay maamul goboleedka Hirshabelle iyo dawladda dhexe iyo dhammaan maaragtay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa sheegay in xilligani loo baahnaa deeqdani ay keentay hay-adda Gift of the Giveries bacdigeedna waxaan leeyahay hay'adda Gift of the Giveries mahadweyne ka gaarto xaqiiqdii deeqdan waa loo baahnay dadka aan maanta inta wax ku siinana waa dadkii guud ahaan ugu nuglay deegaamadan iyagoo ay walba nuglay oo qof indhoola iyo qof jiisa isugu jiray haddana abaartii saameysay xaqiiqdii way u baahnaayeen waa xilligii ugu baahi badnaayeen waxaan leenahay madaxweyne ka gaarto gargaarkan waxaan si gooni asagan ugu mahad celinaynaa Dr. Xaashi oo asaguna si shakhsiyana lacag kaash u siiyay oo dadku ku qaataan oo deegaamadooda ay ku gaarsiistaan oo xamaali ka dhigtaan si gooni asagan u baxshayna waxaan leenahay Ilaahay miisaankaaga ku saaro Ilaahayna ka abal mariyo xaqiiqdii guud ahaan deegaanada Hirshabelle abaartu aad ay u saameysay waxaadna moodaa gurmadku inuu aad u yar yahay marka laga reebo dawladda dhexe gurmadka ay maaragtay bil walba waxbay u qoondaysay siisaah hay'adaha waxaad moodaa gurmadkooda inuu aad u yar yahay tan iyo bilowgii abaaraha ayaa hay-adda Gift of the Giveries waxay gobolka Shabeellaha Dhexe ka waday biyo dhaamin daaweyn iyo gargaaro kale Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jowhar